waxa kaloon sheegi doonaya inaan sheego xarigii uu xidhay suduwayaasha markii la weydiiyay saxaafadda idinku aad weydiiseen maxaad ku xidhay suduwayaasha la weydiiyay wuxuu ku jawaabay ogeydeen meesha waan isugu keenay buuri dadku ma xoolaa dad wax bartay baanu nahay mudane Khadar Yaasiin isku duwii hore wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga gobolka Awdal oo ku dhaweyto halkan oo hotelka ra'iisul magaalada Booramo warbaahinta kula hadlay ayaa wuxuu markii ugu horeysay uu ka hadlay sida uu arko xilka qaadistiisa waxana uu ku tilmaamay waxaan saaka saxaafadda ugu yeedhay inaan ka jawaabo warqad soo baxday 10kii bishii 10aad 2021 oo ahayd 2 cisho ka hor warqadaasi oo ay ahayd nuxurkeedu in laga qaaday xilkii isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Awdal oo aan hayay muddo sanada waxa kale oo warqada ku cadayd laygu eedeeyay inaan ahay ama aan ka qayb qaatay kicinta dadweynaha oo ugu eedeeyay gudoomiyaha gobolka Awdal waxaan doonayaa markaa inaan ka hadlo arrinka magacaabista iyo xilka qaadistu isagu waa midoo sunnaha dawladnimo weeyaan in xilka la magacaabay shalay bay ahayd waxa weeyaan aniga oo waxaan imiday hankii hoggaan aniga leh han hoggaamin maantana waxaan ahayoonkii oo waxaan isleeyahay waxba ku kordhay baan leeyahay oo hankii iyo himiladii iyo hiigsigii hoggaamintii aan islaha ummadood ku hoggaaminaysa halkii bay taaganto waxba igama dhicin waxaan se doonayaa waan hambalyeynaya wasiirka wasaaradda deegaanka oo igmatay xilkaasi igana qaaday waan soo dhaweynaya mas'uulka cusub loo igmaday wasiirka wasaaradda igmatay inuu noqday suduwa cusub wasaaradda deegaanka mudane Khadar Yaasiin isku duwii hore wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal waxa uu eeday ugu cuslaa u jeediyay gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro waxa si ayaan darro ah wax laga xumaado ah in mas'uul gobolka uu ku eedeeyo isuduwayaal iyo dad mas'uuliyiin ah inay kicinayeen dadweynaha maynan aragman ay ka dhaceen mudaharaado laga abaabulay magaalada aynu joogno iyo gobolka guud ahaan kicin dadweyne waa la yaqaan dambiga ay leedahay iyo nooc ay tahay waa la yaqaan waxaan doonayaa inaan weydiiyo gudoomiyaha cadaynta uu hayo inaanu sameeynay kicin dadweyne iyo halkaanu dadweynaha ku kicinay anagu ma dihin dad lagu eedeeyay kicin dadweyne ma leeyihiin dad looga cabsanayo amniga waxaanu nahay dad mas'uuliyiin waxaanu nahay dad ummadda u shaqeynayay waxaanu ugu shaqeynaynay xaalado adag waxaanu ku shaqeynaynay duruufo adag waanu uga leex jecel badanahay amniga uu sheegay uu leeyahay amni baa lid lagu noqoyo lid ku yiin uu leeyahay waxaan markaa doonayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo warqadan lagu eedeeyay isagana og la siiyay wasiirka arrimaha gudaha og la siiyay wasiirka waxbarashada og la siiyay wasiirka macdanta og la siiyay wasiirka deegaanka og la siiyay waxaan doonayaa waxa soo dhan inaan u cadeeyo inay tahay been abuur cad oo baro saabka gobolka Awdal isagu uu been abuurka jeebkiisa kala soo baxay cadayntiina waa looga baahan yahay mas'uuliyiinta kale ee uu ku eedeynaya ila midka ah ee isuduwayaasha kale uu leeyahay in dadweynaha sameeyeen waa dad isaga ka xilkasan weeyaan waa dad isaga ka shaqo wanaagsan baan aaminsanahay qofku marka uu shaqadiisa ku fashilmo ee uu shaqadiisa qofku fahmi waayo ee shaqadii loo igmaday ummadda uu qaban kari waayo iyo qofku kulmo qof xagxagtaa oo qofka dad kale qofku eedeeyaa aad u iska leexiyaa waxaan u cadeynayaa bulshada Soomaaliland waxaan u cadeynayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane madaxweyne ninka qaska ka wada gobolka Awdal oo gudoomiyaha gobolka Awdal soo magacawday weeyaan waxaan ku cadeynayaa in isagu qaska wado oo isagu dhibaatada wado oo isagu fawdada ka wada gobolka Awdal maalintii aad imaneysay magaalada ee lagu soo dhaweynaya anaga waxaan qaltaagayna inaan ku soo dhaweyno oo ku faraxsan soo dhaweyntaada waa lana xidhay anagoo 9 isuduwa lana xidhay waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane madaxweyne ree Awdal iyo adiga qofkeedan xiriirin lahaa communication kiina wanaajin lahaa waxa weeyaan mas'uulka gobolka Awdal warasaabka gobolka Awdal warasaabka gobolka Awdalna xaaladiisa iyo shaqadiisa waa la yaqaanaa 2 sano oo gobolka Awdal joogay waxba kuma soo kordhinin deficit buu gobolka galiyaan aaminsanahay aqal kariiba degan gobolka Awdal warqada uu ku qoran waxa uu lagu eedeeyay kicin dadweyne taa tulamida waxa la wararku ay sheegayaan inaad mardiidaad sameeyeen oo soo dhaweyntii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan ka qayb galay arintaas ma jirto waad baasantahay suxufi awliyo arrinkaas waxa weeyaan waa been abuur cadwey kaasna weeyaan madaxweynaha Soomaaliland anagu waxaanu nahay shaqaalihiisi baanu nahay shaqaale dawladeed baanu nahay ma taalo sabab aanu diido soo dhaweynta madaxweynaha ceeb bay nagu tahay ka diidana ceeb bay ku tahay manay dhicin manaan diidin madaxweynaha anagu waxaanu naqaanuuniyada lagu soo dhaweeyo caleemo qoyan oo anagu ardaya oo dhalinyaro ah waan u yaacanun xilliga la dhado madaxweynaha Soomaaliland baa imanaya anagoo maanta mas'uuliyiin sabab aliyo sabab aan u diidno soo dhaweynta madaxweynaha ma taalo waxa se weeyaan
waxa ka mid tuhun dhibaatooyinka uu gudoomiyaha gobolka Awdal annagoo soo dhaweyntiisa u diyaar garoobana oo subaxii aqaladeed ka soo toosnay oo ballanay baa nagu waad xirantii madaxweynaha anaga uga leex jecel badan nabadgelyada anaga uga leex jecel badan gudoomiyaha gobolka Awdal arrinka aad ii sheegteen ee lagu eedeynayna waa been weeyaan waana been abuur weeyaan cadayna looma bahayaba annaga ogtaa kalsoonina ku qabna Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boram